بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبر دو سلامي ولا واحدة من تيسال بنتين سلام قالية أيان هو ذي دو صمرينيا وحن ماركتي أنطوبيا عوا وقيبتي صدحات بروجرام كي تحنها مالمهن أن كسو شقيني قيبتني marka waa qaybta qusaysa gabdhaha ama aragtay karoobada ah qaybtii u horeysay part 1 waxay qusaysay ama ka hadlaysay gabdhaha xaasaska ah sida ay u arkaan gabdhaha karoobada ah ama qaababka ay ula dhaqmaan qaybtii labaad waxay ahayd qaybta ragga Soomaaliyeed maxay ka rumaysan yihiin karoobadu inay yihiin ama qaabkee ayay ula dhaqmaan bulshada waa kii labaadkaasi kana waa kii saddexaad oo ah gabdhaha karoobada ah sidee ayaad kalsoonidaada aad kor ugu qaadaa hadday kalsoonidaadu ay kor u qaadan tahay already ma sha Allah waa sida la doonayay sidee baad u sii kordhisaa ama u sii siyaadisaa oo u noqotaa gabadh ma aragtay ma sha Allah ah ay waxba ka maqanayn taas way qodobkan caawa ka hadlayo marka u horeysa kulli waxa la yiri la xawalba shilinka isdhigto ayaa ma aragtay lagu qalaa ama lagu gowracaa Soomaaliyeed waa qaniye marka gabdhaha garoobada ah marka u horeysa naftaada adigu hadii aadan qiimeyn oo naftaada adigu aadan halka geynin cid ku geynaysa ma jirto xaqiiqatan marka isku soo duuduub waxa soo dhan kullay gabdhaheenu ma aragtay ma sha Allah inta tamartooda ah kullay way dadaalaan gabadhina waxay doonayso waa guur qurux badan oo ma aragtay kii hore ay ku ilowdo ama maxaa la oranayay ama mid guuray habi ku tahay ay gabadh waliba ay doonaysaa marka gabdhaha garoobada ah waxaan idin oran lahaa marka u horeysa walaalayaal oo kuleyto waad ka daragsan tihiin maxaa la dhahayay ragga maanta jooga qaybaha yihiina cajaradii ka horeysay ayaan uga soo hadlay oon ka taataabtay marka ragga qurbahan jooga wadankii wax badan anigu kama ogay laakiin am sure inay isku mid u yihiin laakiin raggan jooga North America meeshan la yiraahdo ama adigu qurbahan meesha doonta laha ka ahaatee ragga jooga waxa weeyaan waa labadii noocan hore idinku soo sheegay midi waa nin ma aragtay guur qurux badan doonaya oo gabadha diyaar u ah inuu wanaajiyo gabadha diyaar u ah dhaqankeenu sidoo ahaa inuu gabadha u doonto inuu ma aragtay guri u sameeyo guri u dhisto maxaa la dhahayay nin waa ninkaas oo haddaad ha caruur leedahay iyo haddaad shan leedahayba habi ku ah inuu nolol kula qaybsado oo uu ku jeclaado dee uu ku ma aragtay mustaqbal ayuu ka doonayaa sooma waaye raggaas waa koo noocaas nooca labaad waa noocii taqraaranka ahaa taqraaran waa noocii ahaa labadaba waan soo sheegay oo videonkii ka horeeyay aan ku soo sheegay bal dib ugu noqda oo soo dhageysta marka kullay gabar taqraaran diyaar u ah anigu ma ay inay jirto gabar waliba waxay jeceshahay in si wanaagsan ma aragtay loo doonto in ma aragtay guur nidaam leh oo qurux badan inay gasho nin ma aragtay ma sha Allah keena ah oo mas'uuliyadeeda qaadaya oo qurxisanaya oo walba ay doonayso siinaya oo u huraya oo u quura ay gabar waliba ay doonaysaa marka gabaray hoos ay isku dhigin haddaad doonaysid guur qurux badan inaad heshid ragga wanaagsan ayaad helaysaa way yar yihiin laakiin way jiraan oo way joogaan marka anigu waxaan idin kula talin lahaa kalsoonidaada kor u qaad gabadh haddaad tahay ma aragtay shaqaysata
iyo mid haddaad tahay aan shaqaysaninba naftaada kulli qof walba isagaa is og waxaad qof walba waxa uu raadinayo iyo waxa uu doonayo iyo levelkiisu meeshuu gaarsiisan yahayna isagaa is og marka kor ma aragtay madaxaaga u qaad cadkaaga gooso maxaa la dhahayay meel iska soo saar wax kasta qadar rabbi bay ku yimaadaan si aadan jijiid labaad iyo aadan madow iyo aadan maaragtay aadan lugooyo aadan u gelin marka u horeysa warkaaga caddayso oo maaragtay maxaa la dhahayay nin kuu qalma raadso oo hel haddana hala iska jiraya dad waxaa jira niman waxaa jira agtara ah oo iskaga kaa dhigaya inay kuwii keliya ay yihiin haddana ma ay ahan marka madaxiina maaragtay kor qaada gabdhaha horaa loo sheegay gabdhaha garoobada waxaa la yidhi naago ka labis badan iyo naago ka qurux badan iyo naago ka bahalkaysani ma jiraan waxaad awalba horay bakti aad ugu soo cuni weydayna maanta nin kale inaad ka qaadanaysid kulli anigu ma rumaysni yaa ninkaagii hore haddaad uga soo tagtay waxyaabo aad kula dhaqmi weyday nin kalena umalayn maayo inaad yani aad maxaa la dhahay aad isku yani aad dhulka isugu dhigaysid ya markaa markasta shaarkiinu hayduna caddaado markasta maaragtay kalsoonidaada kor u qaad maxaa la dhahay markasta dhoosha ka qosol naagi kaagama qurux badna naagi kaama sharaf badna naagi kaama qiimo badna wixii la doonaya communitygeena halaysla dhexyaa oo hala sheego dhagay jalaq ha u dhigin adigu hore u soco ya nimankaana iska jira taqraaranka ah oo nimankaas maxaa la dhahay focuska saara wanaagsan ee walaaladiin ah ee maaragtay dhooban ee jooga marka intaas ayaan idinkula dardaarmayaa gabdhaha maaragtay garoobada ah meel kasta oo dunida dacaladooda aad ka joogtaan hoosna ha isku dhigana xaqiiqatan hoos weligaa ha isku dhigin aduu gabar baa tahay waad uur baad yeelanaysaa waad walacaysaa xitaa gabar haddaad tahay shaqaysto isku filan berrito waxaa laga yaabaa inay wax maaragtay kaasi noqdaan wax kugu soo kordhaan yacni gabadhii waxay diyaar u tahay nini inuu mas-uul ka noqdo oo gacanta maaragtay uu ku hayo unbay gabadhi ku qurux badanta ya marka haddii kale waad goomankaagaa kala dheeraanaya nin haddaad tiraad halkan iisoo jiifso oo sidii ilmaad dhashay maadaa dhalay maxaad u dhahaysa halkan iisoo jiifso nin way garay kafuur leh saa kusoo tiraadsaday shalayto saaxiib waajibkaaga guda dheh ya haadi wasalaam gabadhii ku qanacsan in aroos loo dhigo gabadhii maaragtay ku qanacsan wax walbay doonayso inay maaragtay ay hesho sheeko waxaad doonaysid ya ninkii diyaar kula ah wanaag ama nin maaragtay ninkii wax kuu quuraya oo wax quuraya oo sharaf leh de waad ka helaysaa ya maamooyin waaweyn oo annaga nadali kara ayaa habeen kasta la hooyahayo maxaa sidee loo aroosaa sidee maaragtay yani gabdhaha xitaa aroosyo ka qurux badan iyo guri ka qurux badan baa loo dhigaa maxay ku keensatay de waxay ku keensatay waxay heshay the right person ayay heshay qofkii u qalmeeya saxda ahaa ayay heshay ya marka sidaas ma aragtay hawshiina ku wada maxaa la dhahayay xaajiga waxaad tidhahdaan war halow dee soo soco ya waxaan ku qanacsanahay oon diyaar aad tahay maaragtay ii samee wuu kuu sameynaya waa ninkii ku doonaya ninkii aan ku doonayna dee excuse iyo marmarsiyo iyo halkan bay ka dhacday halkan bay ka dhacday iyo halkan bay ka dhacday iyo halkan bay ka dhacday unbuu ku leeyahay oo marka hore markay sheekadiisa kuu cuntami weydo waxaad tidhaahdaa saaxiib hidda road jack ya soosas lama odhan jirin hidda road jack waa inaad ku saahi ya marka gabadhay caqligaaga kaasho anigu idin malihi gabdhaha garoobadiihi yani ma guursan karayaan niman maaragtay iska danyara ama niman maaragtay maxaa la dhahay dadku isku mid ma aha waad ku guursan karaysaan inaan waxba haysan nin maaragtay dhaqaalo badan aan lahayn yani waad guursan karaysaa waa wax wanaagsan guurku mar kasta waa wax wanaagsan guurna laguma qasaaro waad guursan karaysaa laakiin ninkaas isaga ah
waa inuu diyaar u yahay berito inuu mas-uuliyaddaas uu qaaday uu ku dhaqmayo uuna ku dhaqayo ya berito adigu meelahaas ma ordi karaysid moogta marka lagu guursado oo nin xarigaaga uu qabto uu nini mas-uulkaa yahay isagaa mas-uuliyaddaada haya choiceka adaa leh haddaad shaqaysanaysana dee waad shaqaysan haddii aadan shaqaysanayna dee isaga ayaa mas-uulkaa ah soo ma ya waa foolxumo nin gari gafulla inaad tiraado halkaa ii jiifso ama aad iska soo xaraysatid oo tiraahdid ma aragtay walaal waxba kaama rabe kaalay ma aragtay iska soo hoyo oon alaab lagu dhigin oo ma aragtay waxba aadan ka helin ninkii oo wax foolxun weeyaan wax qurux badan ma ah ya marka ninku maxaa lay nimanku way badan yihiin shanta afroodsen u sinnayn bay iyaguna ayan u sinnayn nimanku waa la tile baa jira niman daacada ayaa jira niman aan daacad ahayn baa jira niman madmadooga iyo luqluuqa iyo waxaa jira ka hela noloshan iska qayaaliga ah iyo kumeel gaarka markaa kolleyto wixii qoran wax qoran kula tashan maayaan laakiin adduunyada wixii kusoo mara unbaa wax laga qaataa maanta hadduu experience xun kusoo maro indhaha fah kuu noqonaya barito waad ka feejignaanaysaa wixii iyo wax ku dhowtoona ya noloshaada sida ah noloshu markay casharku barto casharka waa inaad homework intaad u qaadatid aad ka shaqaysid ood dhacdhacdhacdhacdhacdhac aad ka siisid ya si barito aad arrinkaa isaga ah aada uga digtoonaatid ma garateen marka way unkaas gabdho maasha allah dee gabdhaha garoobadana waxaa la yidhi rasuulka baa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam waad ka aragsan tihiin markaa gabdho ducaysan baa tihiin markaa madaxiina kor u qaada cadkiina guta cadkiina goostan ka wadaa maxaa la dhahayay meesha adigu isgaarsiisa un ayaad gaaraysaa gabadhii halkaa isgaarsiisana dee halkaas bay gaaraysaa gabadhii ma aragtay halkaa isdhigtana dee halkaas bay ma aragtay ay joogaysaa laxooba shilinka isdhigto ayaa lagu qalaadaa layidhi ya laakiin ha ka qaadan waxaan kuu qalmin qofna ha ka qaadan horaa waxaa loo yidhi silic ku nool soddon guursato ayaa dhaanta ayaa layidhi xariifkan hadduu filmo kale kula yimaado oo mas-uuliyaddiisa uu gudan waayo for whatever reason ama sheekooyin kale oo kuu cuntami waayo oo kula yimaado waxaad ku tiraahdaa hidda road jack ya goodbye who's next leh ya adigoo dhulka jiifsan adigoon barooran adiga oo ma aragtay aan isbahdelin marka saas ayaan isku ognaa insha allahu tacaala intaan ku kulmi doono videogan ka xigi doonana waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka oo ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu